kulanti wacan daawadayaal ku soo dhawaada janalka wararka Soomaalida. Qodobada ugu waaweyn ee warkayaga aad ku maqli doontaan waxa kamid ah Axmed Madoobe iyo wakiilka qaramada midoobe ee Soomaaliya oo soo saaray go'aano culus oo ka dhanaa dawladda. milkiilaha hotelka la weeraray ee Kismaayo oo soo bandhigay sir culus iyo ragga weeraray hotelka. kooxda Daacish oo u hanjabtay maamulka shirkadda DAHAB-SHIIL. maamulka Somaliland oo taageeray hadalkii uu madaxweynaha Mareykanka ugu gafay Soomaaliya. xukuumadda Soomaaliya oo sharci u sameynaysa baraha bulshada ay ku wada xiriirto. iyo madaxweynaha Puntland oo eedeyn kulul u jeediyay dawladda kana hadlay safarka ra'iisul wasaaraha ee Gaalkacyo. intaasi daawadayaal waxay ahaayeen qodobadii warka ugu waaweynaa. markana waxaad ku soo dhawaataan iyagii oo fidsan. Axmed Madoobe iyo wakiilka qaramada midoobe ee Soomaaliya ayaa si wada jir ah uga hor yimid go'aano horey uga soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya. madaxweynaha dawlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa maanta magaalada Kismaayo ku qaabilay wakiilka gaarka ee qaramada midoobe u qaabilsan Soomaaliya James Iswan iyo xubno kale oo ka socday hay'adaha qaramada midoobe. kulankan oo looga hadlay qodobo kala duwan ayaa marka uu soo dhamaaday waxa saxaafadda la hadlay madaxweyne Axmed Madoobe iyo waliba danjiraha qaramada midoobe. madaxweynaha Jubbaland Axmed Maxamed Islaam ayaa sheegay in kulanka lagaga hadlay guud ahaan siyaasadda Soomaaliya halka ay marayso iyo si gaar ah arrimaha doorashooyinka Jubbaland. madaxweynaha waxa uu sheegay inay isku raaceen in waxa wadanka lagu kala hagi karo uu yahay dastuurka dalka u yaala oo lagu dhaqmo. mar uu ka hadlayay arrimaha doorashooyinkana waxa uu sheegay in la isku raacay in arrimahaasi looga dambaynayo guddiga doorashooyinka iyo odayaasha dhaqanka. madaxweynaha waxa uu intaasi ku daray in goobta ay ka dhacayso doorashada iyo amnigeedaba la isku raacay inay tahay mas'uuliyad u taala Jubbaland, taas oo ka hor imaanaysa amarkii dhawaan ka soo baxay dawladda federaalka ee Soomaaliya oo ahaa in doorasho lagu qabto akademiyada booliiska Jubbaland ama xarunta qaramada midoobay. danjiraha qaramada midoobay ayaa dhankiisa ka mahadceliyay sida loo soo dhaweeyay, waxaana uu Jubbaland uga tacsiyeeyay weerarkii al-shabaab ee lagu qaaday hotel Madiina. waxaana safiirka uu sheegay in qaramada midoobay ay garab taagan tahay maamulka iyo shacabka Jubbaland oo ay xanuunka la qaybsanayaan. waxa kale oo danjiraha uu sheegay in kulanka isaga iyo madaxweynaha lagaga hadlay kobcinta dhaqaalaha iyo dawlad wanaagga, arrimahaasina ay qaramada midoobe ka taageerayso Jubbaland. waxa uu intaasi ku daray inay doonayaan in Jubbaland ay ka dhacdo doorasho xalaal ah oo aan meelna laga faragelin, isla markaana mas'uuliyadeeda ay leedahay dawlad goboleedka Jubbaland. waxaana uu xusay in sidoo kale uu la kulmay guddiga doorashooyinka Jubbaland iyo xildhibaanada laga soo doorto Jubbaland ee baarlamaanka federaalka uu aragtidooda ka dhageystay. dhinaca kalena milkiilaha hotelka la weeraray ee magaalada Kismaayo ayaa soo bandhigay sir culus iyo ragga weeraray hotelka. weli waxaa burbur iyo raad-raab laga dareemayaa hotelkii al-shabaab ay weerareen Jimcihii isbuucii hore ee magaalada Kismaayo. weerarkaasi waxaa ku dhintay dad ku sugnaa hotelka Madiina X cascasay, iyadoo ay jiraan khasaare hantiyeed oo badan ka dhashay weerarkaasi marka midka nafeed laga soo tago. hotelkani waxa uu ku yaala xaafadda Faanoole waaxda isku filan, waxaana uu ka mid ahaa hotelada ugu bilicda wanaagsan magaalada Kismaayo. milkiilaha hotelka Madiina Maxamed Cabdi Jaamac ayaa u sheegay telefishinka Jubbaland inay dhawaan bilaabayaan dayactirka hotelkaasi. waxaa hadalka milkiilaha uu ku soo aadayaa xilli shalay kulankii golaha amniga Jubbaland ee Kismaayo ka dhacay la sheegay in lagu garab istaagayo milkiilaha hotelka uu ka burburay. geesta kalena kooxda Daacish ayaa u hanjabtay maamulka shirkadda DAHAB-SHIIL. kooxda Daacish ee Soomaaliya ayaa fariin hanjabaad u dirtay maamulka shirkadda DAHAB-SHIIL ee koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, waxaana soo baxaya cabsi ay qabaan shaqaalaha shirkadaasi. xubno ka tirsan xawaalada iyo bangiga DAHAB-SHIIL ayaa u sheegay warbaahinta inay wajahayaan xaalad khatar ah kadib markii lagu wargeliyay hanjabaadda Daacish ee ka dhanka DAHAB-SHIIL. dadka aan la hadalnay ayaa inoo sheegay in shir degdeg ah loo qabtay dhammaan shaqaalaha shirkadda DAHAB-SHIIL, isla markaana ay kulamadaasi ka dhaceen xarun walba oo ay leedahay shirkadda DAHAB-SHIIL, waxaana lagu wargeliyay inay taxadaraan. waxaana loo sheegay inay jirto baqdin ammaanka ah kadib markii Daacish u hanjabtay maamulka iyo shaqaalaha DAHAB-SHIIL, ayuu yiri qof aan la hadalnay oo ka tirsan shirkadda DAHAB-SHIIL. Daacish ayaa ka doonaya DAHAB-SHIIL malaayiin lacag oo ay ku sheegeen in loogu adeegayo dadka Islaamka sida ay hadalka u dhigeen.
kooxda Daacish waxay dahabshiil ka doonaysaa lacag aan yareen oo ku dhawaad 10 milyan oo dollar ah waxaana maamulka shirkadda ay sheegeen inaysan awoodin bixinta lacagtaasi hore Daacish waxay toogasho ku dishay xubno badan oo ka tirsan shirkadda Hormuud kadib markii ay diiday bixinta lacag ay ku doonaysay Daacishta Soomaaliya waxaana hadda u muuqataa in dahabshiil ay maraysa xaaladii Hormuud maamulka Somaliland ayaa taageeray hadalkii uu madaxweynaha Mareykanka ugu gafay Soomaaliya wasiir ku xigeenka wasaaradda waxbarashada ee maamulka Somaliland Maxamed Daahir Axmed ayaa taageeray hadalka dhanaha Soomaaliya oo ka soo baxay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump kaas oo ahaa in Soomaaliya ay ugu horeyso dalalka uu ku jiro masuqmaasuqa inkastoo xiriirka ka dhaxeeya Soomaaliya iyo Mareykanka uu yahay mid wanaagsan isla markaana uu sii kordhayay iskaashiga labada dal ayaa haddana waxa markii ugu horeysay soo baxaya fikradaha uu Trump ka qabo arrimaha Soomaaliya wasiir Maxamed Daahir Axmed oo qoraal kooban soo dhigay bartiisa Twitter-ka ayaa ka hadlay arintan isaga oo sheegay in Somaliland aragtidaasi ay ku raacsan tahay Trump waxa uu tilmaamay in dawladda ka jirta xamar ay tahay mid musuqmaasuq badan sida uu hadalka u dhigay Somaliland ayaa dadaal badan ku bixinaysa xiriirkeeda arrimaha dibadda si ay u hesho aqoonsi caalami ah balse waxaa jira caqabado hortaagan ictiraafkeeda dhawaan Soomaaliya ayaa xiriirka u jirtay Geni kadib markii ay soo dhaweyn sare u sameysay madaxweynaha maamulka Somaliland Muuse Bixi Cabdi tallaabadaas ayaa waxaa ka hor yimid madaxweyne Bixi oo si aad ay ugu dhaliilay dawladda federaalka ee Soomaaliya tan iyo wixii ka dambeeyay markaasi waxaa jiray hadallo xanaf ah oo ka soo yeeray madaxda maamulka Somaliland dhinaca kalena xukuumadda Soomaaliya ayaa sharci u sameynaysa baraha bulshada ay ku wada xiriirto xildhibaano ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee labada gole wasaaradda cadaaladda iyo saraakiil ka tirsan maxkamadaha dalka ayaa ka shiraya sidii loo sameyn lahaa sharciyo ku meel gaar ah oo lagu ciqaabo dadka wararka been abuurka ah iyo aflagaadada ku daabaca baraha bulshada ku kulmaan ee internetka warbaahinta ayaa ogaatay in xubno ka tirsan gudiyada cadaaladda ee baarlamaanka federaalka ay la kulmeen saraakiil ka tirsan hay'adaha garsoorka dalka ayna ka dalbadeen in la soo saaro xeerar ku meel gaar ah oo si degdeg ah ugu dhaqan gala maadaama ay jirto qatar badan oo dawladda Soomaaliya ay rumaysan tahay inay kaga imaanayso Facebook iyo Twitter iyo qaybaha kale ee internetka arintan ayaa waxa soo abaabulay ama isku dubaridkeeda leh wasaaradda cadaaladda Soomaaliya iyo gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka waxaana uu ka mid yahay dalab ay sameeyeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdilaahi Farmaajo iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya sameynta sharciyo degdeg oo ku meel gaar ah ayaa hadda looga fadhiyaa maxkamadaha dalka kuwaas oo la siiyay muddo 60 cisho ah ilaa 90 cisho ah iyadoo lagu wargeliyay inay dawladda Soomaaliya doonayso inaysan hay'adaha garsoorka dalka soo celin qof dambe oo ku eedeysan warar lagu qoray baraha bulshada qof ka tirsan saraakiisha maxkamadda gobolka Banaadir ayaa warbaahinta u sheegay in 3 jeer arintan laga kulmay waxayna kulamada laba ka mid ah ka dhaceen xarunta madaxtooyada Soomaaliya ka hor intaan la go'aamin in sharci ku meel gaar ah loo sameeyo internetka ayaa madaxdii kulanka ka yeeshay waxay qorsheeyeen in internetka dalka oo dhan laga xanibo faafin waxyaabaha aysan la dhacsaneyn dawladda Soomaaliya sida ay sameeyeen dalal badan oo ay Djibouti ka mid tahay dawladda Soomaaliya ayaa dhibaato badan ku qabta Facebook oo ah saldhigga ugu weyn ee lagu soo bandhigo qaladaadka dawladda ciidamada iyo sheekooyin kale oo waqtiyada qaar aflagaada iyo dhacdo been abuur ah ugu dambeyntiina madaxweynaha Puntland ayaa eedeyn kulul u jeediyay dawladda kana hadlay safarka ra'iisul wasaaraha ee Gaalkacyo madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ayaa sheegay inay jiraan dad xilligan faragelin ku haya arrimaha Puntland isagoo digniin u diray waxa uu sheegay inay jiraan dad daneynaya inay weeqaan horumarka Puntland isla markaana kicinaya dhalinyarada isagoo sheegay inaysan aqbalayn in dhalinyarada lagu kiciyo wax aan munaasab ahayn waxaan aad uga digayaa dadka daneynaya inay weeqaan horumarka Puntland ee dhalinyarada kicinaya ma aha in dadka la hareer mariyo oo wax aan jirin loo aqriyo shacabka waxaan leeyahay ilaashada midnimadiina ayuu yiri madaxweyne Dani madaxweynaha Puntland Siciid Cabdilaahi Dani ayaa si cad u sheegin dadka uu sheegay inay faragelinta ku hayaan arrimaha maamulkiisa ee uu digniinta u dirayo hadalka ka soo yiri madaxweynaha Puntland ayaa u muuqda mid u jawaabaya ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Kheyre oo dhawaan Gaalkacyo kula hadlayay dhalinyaro soo dhaweysay oo uu sheegay inaysan dhici karin in shacab iyo dawlad la kala dhaxgalo guud ahaan daawadayaal warkii aad kala socoteen channelka wararka Soomaalida waa naga inta